نعم. شيخ سؤاشا أي قبل سوي ديسي وحلا هذا السلام عليكم شيخ محمد. سؤال شيء ذا وحويان شيخ نين أيان إسقبني وحنود لي سدح عرورة كدبنا وانكلا تقني ومتكلا أيان قرصدي هدنا كي هوري أيان لقى الموضي أصاغو كي دنبي إقابو marka muxuu yahay xukunkayga sheekhow ii jawaab. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida daafaheeda aad ka joogtaan iyo si walba oo muuqaalkan aad u daawanaysaan waqti kasta oo ay idin tahay waxa idin leeyahay ha idin wacnaado oo ha idin wanaagsanaado. waxaan filayaa in muuqaalkan aad caafimaad ku daawanayso. waxaan ku leeyahay daawade caafimaadka Allah ku siyaadiyo meel kastoo aad muuqaalkan ka daawanaysaan. halkaad nagala socotaan daawadayaal waa janaalkeena King MD Official. waxaan halkan maalin walba aan soo gelinaa muuqaalo xilligaasi ka taagan guud ahaan geyiga ay Soomaalida degto iyo waliba mowduucyada ugu kulul ee laga hadalhayo bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda. haddaba daawade haddii ay ku tahay booqashadaada koobaad ee aad halkan soo booqato waxaan si xushmad leh kaaga codsan lahaa in janaalka subscribe inoo dhaado sidoo kalena muuqaalka like inoo dheh comment ka soo bixi saaxiibadiinana la sii wadaaga. kuna soo dhawaada muuqaalkeena maanta oo ku saabsan su'aal dabcan la yaab leh oo la weydiiyey Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo kamid ah culimada Soomaaliyeed kuwada ugu waaweyn iyo waliba jawaabta uu ka bixiyay su'aashaasi oo aad ku daawan doontaan gudaha muuqaalkan ee ku soo dhawaada daawadayaal. hagaag daawadayaal isku soo noqod wanaagsan meel kasta oo aad muuqaalkani aad ka daawanaysaan xilli walba ay ku tahay ha ku wacnaado daawade oo ha ku wanaagsanaado. wali halkaad nagala socotaan daawadayaal waa channelkeena King MD Official. waxaan halkan aan soo gelinaa maalin walba muuqaalo xiiso leh. haddaba daawadayaal si aan muuqaalka u bilowno waxaan ka codsan lahaa in muuqaalkan aad like inoo dhahdaan si dad badan ay inoogu daawadaan. haddaba waa yahay daawadayaal sida bilowga muuqaalkan aad ku daawateen waxa uu ku saabsan yahay su'aal dabcan la yaab lahayd oo la weydiiyey Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo kamid ah culimada Soomaaliyeed kuwada ugu waaweyn. dabcan su'aashan oo ahayd su'aal dabcan sheekha ka yaabisay kana nixisay ayaa waxa ay ama su'aalka qofka soo weydiiyey ama saa'ilka ah waxa ay leedahay sheekhow dabcan nin ayaa iqabay ninkii iqabay waan kala tagnay deetana nin kale ayaan nolosha wadaagnay isaga oo ninkan dambe uu iqabo ayaa haddana waxa aan gogol dhaaf aan la sameeyey ninkii shalay aan soo kala tagnay ee aan dabcan kala tagno calafkeeni dhammaaday ninkaa ayaan gogol dhaaf la sameeyey isaga oo kii iqaba uu nool yahay welina uu iqabo ninkaasi kalena dabcan aan gogol dhaaf la sameeyey. haddaba muxuu yahay xukunkeyga ayay sheekha soo weydiisay gabadhaasi dabcan Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo su'aalo badani dabcan la weydiinayay. su'aashan ay ahayd midii dabcan ugu la yaab ka badneed ama su'aashii ugu adkeed ee laga jawaabo. haddaba waxyaabaha caynkani ah muddooyinkii dambe waa ay soo bateen oo ma ahan 1 iyo 2 inta aan maqalnay dhacdooyinka caynkani ah welibana dad badan oo culimo u badan oo ka sheekeeyay in ay goobjoog u hayeen in dhacdooyin caynkaasi ah ay ku soo badanayaan bulshada Soomaaliyeed dhexdooda. naaga badan ama haween badan oo la qabo ayaa dabcan waxyaabaha caynkani oo kala sameeyo weliba dabcan ha ugu badnaadaan gabdhaha la qabo ee nimankooda ay dibadda ku maqan yihiin. haddaba waxyaabaha caynkani waxa fiican in laga waantoobo mana ahan dabcan wax dhaqan ahaan iyo waliba diin ahaan intaba wanaagsan. haddaba waxaan idin fasaxayaa jawaabta su'aashaasi uu ka bixiyey Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo ah sheekh weyn oo dabcan kamid ah culimada Soomaaliyeed kuwada sida aadka loo xushmeeyo. haddaba jawaabta uu bixiyey sheekha ayaan dabcan idin fasaxayaa iyo su'aasha la soo weydiiyey sheekha jawaabtiisa iyo su'aasha oo socota ayaan daawadayaal idin fasaxayaa ku soo dhawaada. نعم. شيخ سؤاشا أي قبل سوي ديسي وحلا هذا السلام عليكم شيخ محمد. سؤال شيء ذا وحويان شيخ نين أيان إسقبني وحنود لي سدح عرورة
kadibna waan kala tagnay oo mid kale ayaan guursaday haddana kii hore ayaan la galmooday asagoo kii dambe iqabo marka muxuu yahay xukunkayga sheekhow ii jawaab xukunkaagu adigu waad garanaysaa maxaa naga weydiinay islaan gogol dhaaftay baa tahay oo gogashii ninkeeda wasakhaysay oo ilaahay dembi ka gashay sidaas daraaddeed toobadkeen oo ilaahay u toobadkeen ilaahay dembi dhaaf weydiiso waxaad samaysayna ka toobadkeen dembi aada u culus weeye waxaa kala duwan haweeney aan nin lahayn oo bannaanka ka zinaysano fadlan isdhageysano haweeney aan nin lahayn oo xumaan ku dhacday iyo haweeney nin leh oo guri leh oo iyadoo nin qabo xumaan samaysay way kala duwan yihiin ilaahay agtiisa laba dembi oo kale zinadaas ii kala weyn haddana waxaa ka sii weyn markay zinadu dhacdo dariska markay ku dhacdo way ka sii culus tahay oo ninka dariska la xaaskiisa uu faraxumeeyo ama muxuu ahaayey dariska dhexdiisa ay ka dhexdhacdo way ka sii weyn tahay sida nebigu tilmaamay sala allahu calayh waali wasalam sidaas daraaddeed gabadhaas waxaan dhihi lahaa dembigu waa culusay aada gashay laakiin ilaahay dunuubta waa dhaafaaye toobadkeen saxa la imow wallahu aclam yahay daawadayaal muuqaalkeeni maantana dabcan intaas ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo waxaad muuqaalkan aad ku daawateen su-aal la yaab lahayd dabcan oo la soo weydiiyey sheekh maxamed cabdi umal su-aashaasi oo ku saabsaneed gogol dhaaf sida aad muuqaalka dabcan aad ku daawateen haddaba daawadayaal waxaan idinka filayaa in muuqaalka aad like dhahdeen si dad badani ay dabcan u daawadaan muuqaalka haddii muuqaalka aad like dhahdo waxay macnaheeda tahay in aad ka qayb qaadatay in muuqaalkani uu faafo ogow waa loo baahan yahay in muuqaalkani uu faafo oo dad badani ay daawadaan sababtoo ah waxa ay jawaabtan ay anfici doontaa qof walba oo dhaqan xumada caynkani oo kale ah sameeya ama samayn doona ee niyadiisa ku taagneed haddaba daawada ka qayb qaado in muuqaalkani uu faafo si dad badani dabcan uu ugu noqdo wacyigelin iyo weliba digtooni intaba haddaba daawadayaal muuqaalkeenina intaa ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo waxaad ku daawateen su-aashan la yaabka lahayd ee la soo weydiiyey sheekh maxamed cabdi umal oo dabcan ka mid ah culammada soomaaliyeed kuwooda sida aadka loo xushmeeyo dhanka diinta islaamkana si aad ah u yaqaana haddaba daawadayaal muuqaalkeenina intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa waxaad ku daawateen su-aashan la weydiiyey sheekh maxamed cabdi umal oo ku saabsaneyd gogol dhaafka waxaana soo weydiisay mid ka mid ah gabdhaha soomaaliyeed oo dabcan dembigaasi ku dhacday waxaana filayaa in jawaabtaasi dad badan ay anfacday inta aanan ka bixin daawade waxaan ku xasuusin lahaa in muuqaalka aad like noo dhahdo sidoo kale commenti ka soo bixi saaxiibadaadan muuqaalka la sii wadaag tan intaan dib u kulmi doono muuqaal kan ka xiisa badan sidaas iyo nabad gelyo